kusoo dhawaada warka TV-ga Rajoqaran qodobada ugu doorkroneed ku daawan doontaan waxaa kamid ah qarax gaari oo ka dhacay magaalada Muqdisho xilli ay xiran yihiin wadooyinka magaalada gudoomiyaha golaha shacabka oo go'aan kasoo saaray ka qaybgalka Saxaafada kulamada Baarlamaanka duqa magaalada Muqdisho magacaabay gudoomiye ku xigeenka amniga degmada Daynile wasiirka caafimaadka Soomaaliya oo sheegtay in Soomaaliya aysan lahayn goobo lagu baxnaaniyo hooyada iyo dhallaanka si hayaa cusub ee safaaradda Soomaaliya ee Uganda oo xilka la wareegay haweenka Muqdisho oo deeqta kulena ku wareejiyay ciidanka xoogga ee furunta hore ee dagaalka ku jira Soomaaliya oo midowga boostada adduunka weydiisatay in laga qaado xayiraadda dhinaca boostada waa maalin Arbacaha taariikhdu waxay ku aastaysan tahay 10-ka bisha afraad ee Abriil sanada 2019 intaasi waxay ahaayeen qodobada ugu doorkroona warka u diyaar garooba qodobada horraca faahfaahintooda aynu ku bilownay qarax gaari ayaa ka dhacay magaalada Muqdisho xilli ay xiran yihiin wadooyinka magaalada qarax xoogan ayaa galgalay goordhow magaalada Muqdisho kaasi oo joogtiisa laga maqlay qaybo kamid ah degmooyinka gobolka Banaadir goob jooga la hadlay TV-ga Rajoqaran ayaa sheegay in qaraxa uu ahaa mid loogu xiray gaari uu lahaa sarkaal ka tirsan booliiska dawladda oo magaciisa lagu sheegay Koronto qaraxa ayaa ka dhacay wadada Maka al-Mukarrama gaar ahaan nawaaxiga shaqaalaha iyadoo goobta ay tageen ciidamada ammaanka oo halkaasi kasoo qaaday dhaawaca dadkii saarnaa gaariga qaraxan ayaa kusoo beegmaya xilli wadooyinka magaalada Muqdisho ay xiran yihiin isla markaana booliiska uu dhawaan bixiyay digniino la xiriira in baabuur qaraxyo lagu soo xiray ay ku jiraan magaalada Muqdisho dawladda ayaa u diiday wariyaasha warbaahinta madaxa banaan iyo gaadiidka gurmadka ee aamin ambulance inay tagaan goobaha qaraxyada ay ka dhaceen waxaa soo dhamaaday kulan xasaasi oo u dhaxeeya gudoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya iyo inta badan madaxda iyo agaasimayaasha warbaahinada madaxa banaan ee Soomaaliya gaar ahaan kuwooda magaalada Muqdisho kulankan oo ahaa mid aad loo sugayay natiijada kasoo bixi doonta ayaa ugu dambeyntii waxaa la isku afgartay in saxaafada loo ogolaado kulamada Baarlamaanka marka laga reebo kulanka su'aalaha lagu weydiinayo madaxda amniga gudoonka golaha shacabka iyo xildhibaanada ayaa isku afgartay in la ilaaliyo habsami u socodka kulamada Baarlamaanka lagana fogaado wax kasta oo qalqal gelin kara kulamada waxaana arintan loo soo bandhigay saxaafada oo loo sheegay inay ku shaqeeyaan sida gudoonka iyo xildhibaanada ay ku heshiiyeen kulamo labadii maalmood u socday gudoonka iyo xildhibaanada ayaa la isku afgartay in doodii ku saabsaneyd arrimaha amniga laga hadlo maalinta Sabtida ee soo socota warbaahintana goobjooga ka noqoto waxaana maalintaasi kaliya la dhageysan doonaa khudbadaha xildhibaanada iyo fikradaha ay qabaan xaaladda amni ee dalka xildhibaanada iyo gudoonka ayaa sidoo kale ku heshiiyeen maalinta xigta ee Axadda loo yeero taliyayaasha iyo wasiirada si ay uga jawaabaan su'aalaha amniga la xiriira iyadoo aanay warbaahinta goobjoog ka noqon doonin waxayna u muuqataa inuu fulay qorshe ay xukuumadda ka lahayd kulankaasi oo ahaa inaysan shacabka ogaan fashilka dhanka amniga ee dawladda sidoo kale aysan hadallo iskhilaafiyo ku hadlin hay'adaha amniga xildhibaanada intooda badan ayaa ka hor imaaday qorshe maalmahana la waday oo ahaa in guud ahaan warbaahinta laga mamnuuco kulamada Baarlamaanka balse dood dheer kadib oo ay yeesheen xildhibaanada iyo gudoomiyaha waxaa lagu heshiiyay in warbaahinta loo ogolaado qaybo kamid ah kulanka amniga oo loo kala qaaday dooda amniga iyo su'aalaha hay'adaha amniga xildhibaanada ayaa gudoonka u soo jeediyay intii saxaafada laga mamnuuci lahaa kulamada Baarlamaanka taasi bedelkeed warbaahinta la siiyay wax muujinaya calaamadahooda kaarar aqoonsi la siiyay in ay amarada iyo shuruucda golaha ilaaliyaan dhinaca kalena duqa Muqdisho ayaa magacaabay gudoomiye ku xigeenka amniga ee degmada Daynile ee gobolka Banaadir gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan injineer Yariiso ayaa magacaabay gudoomiye ku xigeenka amniga degmada Daynile ee gobolka Banaadir wareegto ka soo baxday xafiiska duqa Muqdisho ayaa Cabdulqaadir Cali Nuur Farcade loogu magacaabay in uu noqdo gudoomiye ku xigeenka amniga ee degmada Daynile
sidoo kale wareegtada uu soo saaray gudoomiye Riso ayaa waxaa lagu sheegay in la kala qaaday xilalka amniga iyo siyaasadda ee degmada Daynile ee gobolka Banaadir. Wasiirka caafimaadka Soomaaliya ayaa sheegtay in Soomaaliya aysan lahayn goobo lagu baxnaaniyo hooyada iyo dhallaanka. Fawziya Abikar Nuur wasiirka wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda Soomaaliya oo maanta hadal ka jeedisay kulanka xildhibaanada aqalka sare ee Baarlamaanka ayaa sheegtay in Soomaaliya ay kaalinta koowaad ka gashay dalalka ugu liita ee hooyo ay ku dhali karto caruur maadaama aysan jirin baytiri xarumo caafimaad oo lagu daryeelo hooyada iyo dhallaanka. Fawziya Abikar ayaa intaasi ku dartay in baxnaano fiican ee la siin karo hooyo Soomaaliyeed aysan jirin maadaama ay jaamacaduhu sidii tukaan ganacsi oo kale ay dalalka kaga furan yihiin dalka Finland oo ay tusaale u soo qaadatay ay sheegtay in kaalinta koowaad uu ka galay dalalka caalamka ugu wanaagsan ee lagu baxnaaniyo hooyada iyo dhallaanka. Dhanka kale wasiir Fawziya ayaa sheegtay in wasaaraddeeda ay ka warheshay in ay jiraan dawooyin aan la hubin ee dalka la soo geliyo laguna iibiyo farmashiyaal ku yaala magaalada Muqdisho kuwaasi oo sababi kara baytiri xanuuno kala duwan. Waxa ay sheegtay in arintaasi wax looga qaban karo oo kaliya in aqalka sare uu meel mariyo sharciga mihnadlayaasha caafimaadka. dhanka kalena sihayaha cusub ee safaaradda Soomaaliya ee Uganda ayaa xilka la wareegay. sihayaha safaaradda Soomaaliya ee dalka Uganda mudane Cali Maxamed Maxamuud oo dhawaan dowladda Soomaaliya soo magacawday ayaa shalay xilka kala wareegay sihayihii hore ee safaaradda mudane Cabdiweli Cali Faaraxa. munaasabada kooban oo ka dhacday xarunta safaaradda ayaa waxaa goobjoog ka ahaa diblomaasiyiinta oo qaybsanayaasha ka howlgala safaaradda iyo marti sharaf kale oo ka kala socotay qaybaha kala duwan ee bulshada. mudane Cabdiweli Cali Faarax sihayaha hore ee safaaradda ayaa munaasabada kasoo jeediyay warbixin kooban oo kaga hadlay sidii safaaradda u shaqeyso iyo qalabka safaaradda leedahay isagoo u mahadceliyay howlwadeenadii safaaradda sidii wanaagsaneed ay ula soo shaqeeyeen intii uu xilka hayay. sihayaha cusub mudane Cali Maxamed Maxamuud Cali Cagabaruur ayaa isagana u mahadceliyay sihayihii hore ee safaaradda iyo sida wadaniyad leh oo uga soo shaqeeyay safaaradda iyo sida sharafta lahayd ee uu u ilaaliyay hantida qaranka. mudane Cali Cagabaruur ayaa hadalkiisa ku sheegay inuu ka shaqeyn doono sidii loo xoojin lahaa xiriirka wanaagsan ee ka dhexeeya labada dal ee Soomaaliya iyo Uganda kana shaqeyn doono xoojinta dhinacyada siyaasadda, waxbarashada, ganacsiga iyo fududeynta isu socodka labada dal. Cali Cagabaruur ayaa sidoo kale sheegay in waxqabadka safaaradda halkiisa kasii wadi doono si gaarana uu u saari doono u adeegida muwaadiniinta Soomaaliyeed si siman una qaban doono adeeg hufan. sihayaha ayaa intaasi ku daray in bilicda safaaradda iyo tayanta adeega safaaradda. haweenka magaalada Muqdisho ayaa deeqta kuleyna ku wareejiyay ciidanka xoogga ee furunta hore ee dagaalka ku jira. sahaydan loogu talagalay ciidanka qalabka sidee howlgalada ka wada qaar kamid ah gobolada dalka gaar ahaan kuwa la wareegay deegaanada Sabibi Caanole ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa isugu jira hilib, kalluun, buskud, sabaayad iyo biyo taasi oo haweenka ku nool caasimadda ay ugu talagaleen inay kaga qayb qaataan howlgalada dalka looga xoreynayo xarakada Al-Shabaab. haweenka oo soo ururiyay sahaydan oo loogu magac daray taageerada muwaadinka ee ciidanka qalabka sida oo aragtideeda ay lahayd marwada koowaad ee dalka Zainab Cabdi Macalin ayaa sheegay in haweenka Muqdisho ay go'aansadeen inay isgarab tagaan ciidanka qalabka sida. gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Maxamed Baarqab ayaa sheegtay inay u taagan yihiin dhiirigelinta iyo taageerada ciidanka qalabka sida ee dagaalka kula jiro kooxda arxanka daran ee Al-Shabaab iyadoo xustay inay ka go'an tahay inay garab u noqdaan ciidanka. agaasimaha guud ee madaxtooyada qaranka Marwa Aamina Saciid Cali ayaa ugu mahadcelisay haweenka Soomaaliyeed sida ciidamada ay u garab istaageen iyadoo sahayadii haweenkan ay ugu talagaleen ciidanka lagu wareejiyay taliyaha hoggaanka saadka ee ciidanka xoogga dalka Dhame Sharmaake Cali Axmed. ugu dambeyntiina Soomaaliya ayaa midowga boostada adduunka weydiisatay in laga qaado xayiraadda dhinaca boostada. wasiirka boostada isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada Soomaaliya mudane Jireer Cabdi Canshuur Xasan ayaa ka codsaday midowga boostada adduunka ee UBU in ay Soomaaliya ka qaadaan xayiraadda saaran sanadaha badan ee wasiirka boostada isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada Soomaaliya mudane Jireer Cabdi Canshuur Xasan ayaa ka codsaday
midooda boostada adduunka ee UBU inay Soomaaliya ka qaadaan xayiraada saaran sanadaha badan si dalkeenu uga faa'iideysto horumarka adduunka ka gaaray isgaarsiinta boostada. wasiirka oo sharaxayay qorshaha ay wasaaraddu u dejisay si soo nooleynta boostada ayaa sheegay in howlo badan laga qaban doono dejinta siyaasadihii iyo qorshayaashii lagu hagi lahaa boostada dalka, tababarka iyo tayeenta shaqaalaha boostada ee helitaanka agabkii lagu shaqeyn lahaa iyo dib u dhiska xarumihii boostada ee magaalooyinka waaweyn ee dalka. wasiirka oo ka hadlayay shirka guddiga maamulka ee UBU ayaa sheegay in adeegyada boostada iyo horumariyaan dhaqaalaha dal kasta oo maadaama ay yihiin kaabayaashii adeegyada ganacsiga kala gudbin lahaa isla markaana laga abuuri karo shaqooyin badan oo ay dhalinyaradu ka faa'iideysan karaan. wasiir canshuur ayaa uga mahadceliyay UBU taageerada kala duwaneed ay siiyeen Soomaaliya sanadihii la soo dhaafay, kuwa ay kamid ahayd inay fududeysay in boostadu ay dalka timaado inkastoo ay xayiraad dalkeena ka saaran tahay in dalka dibadiisa wax u dirno. waxa aan fursadan uga faa'iideysanayaa inaan u mahadceliyo danjire Bishaar Xuseen oo si gaar ah noola duubtay oo la'aantiisa aysan waxyaabo badan noo suurtagelin. agaasimaha guud ee UBU danjire Bishaar Xuseen ayaa sheegay in UBU ay sameyn doonto wax kasta ay awoodo oo Soomaaliya u fududeyn kara inay dib ugu soo noqoto inay xubin buuxda ka noqoto UBU, isagoo u xusay in uu soo dhaweynayo talaabooyinka ay qaaday wasaaradda sanadihii ugu dambeeyay iyo sida ay hoggaanka sare ee wasaaradda ugu go'an tahay inay soo nooleeyaan adeegyada boostada ee casri ah. wasiirku safarkiisa ku weheliyay wasiiru dowlaha wasaaradda mudane Cabdullaahi Bilo Nuur ayaa inta ay joogaan dalka Switzerland la kulmi doonaan dalal kala duwan oo gacan ka geysan kara qorshaha wasaaradda ee arrimaha boostada. wasiirka ayaa ugu dambeyntii ka codsaday dalalka xubnaha ka UBU in Soomaaliya laga taageero sidii dib loogu dhisi lahaa boostada dalka oo asaas u ah horumarka dhaqaalaha iyo ganacsiga casriga ah. guud ahaan daawadayaal waa inaga warka aad kala socoteen TV-ga Rajoqaran. hadba sidii aad ula socoto wararka geyga Soomaaliyeed, subscribe saara TV-ga Rajoqaran.